kusoo dhawow xisbigaaga kusoo dhawow taageerayaashaada kusoo dhawow magaalada muqdisho oon kala har lahayn ayaa kusoo dhaweynaysa waxaan halkaan nala jooga sidoo kale oo meeshaan ka soo dhaweynaynaa baarlamaankii federaalka maxaan leenahay baarlamaanka federaalka ha jiro hawshiisa ayuu gutay shaqadiisa ayuu qabsaday baarlamaanka waxaan leenahay jiro joog maxaan leenahay baarlamaanka jiro joog hawshaada qabso waxaan ku faraxsanahay baarlamaanka meeshaan nala jooga inay yihiin baarlamentariyankii shaqadoodii qabsaday oo runtii maanta aan halkaan isugu soo baxnay inaan ayagana taageero u muujinno shaqadii wanaagsaneed ay u qabteen run ahaantii ummadda Soomaaliyeed oo ay ku mateleen maxaa la yiraahdaa waxa ka dhex buuxaya shacabka waxaan runtii soo dhaweynaynaa halkaan inay isla xisaabtan iyo ay u joogaan baarlamaanka ay runtii ay xisaabiyeen dawladda oo runtii ay ku soo qabteen gacantii dawladda oo corruption iyo musuqmaasuq gacanta kula jirta ay soo qabteen waxaan leenahay dadweynaha waa idin taageersan yahay waxaan leeyahay dadweynaha ku matashiin arrintaas aad gasheen waxaan leenahay hawshiina meesha ka sii wata shaqadiina wata dalkan wuxuu u baahan yahay dawlad nadiif ah adinkaana keeni kara shacabkaana matashan marka dhammaan waa idin soo matalaynaa waxaan kaloo soo dhaweynaynaa xildhibaanada dowlad goboleedyada ee halkan jooga xildhibaanada dowlad goboleedyada Jubbaland Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Puntland oo halkan ayagana jooga waa soo dhaweynaynaa intaas ka badan ku dheereymaayo waxaan rabaa inaan siiyo xildhibaanadii haliyada ahaa intii aanan siin kelmadda hogaamiyaha waxaan rabaa dhowr xildhibaan oo runtii ayagana idin siinayo warbixin kooban waan ognahay inaan qorax fadhideen oo laba daqiiqo aan ka badnayn ayaan rabaa halkan inay siiyaan waxaan soo dhaweynayaa xildhibaan Cabdifataax inuu noo bilaabo oo meeshan kelmadiisa ka jeediyo marka waxaan rabaa xildhibaanada inay warbixin yar idin siiyaan kadibna aan hogaamiyaha ku wareejino soo dhawo xildhibaan xildhibaan Cabdifataax waxa uu ku jiray xalay xildhibaanadii hadlay ee sheegay in mooshin ka gudbiyeen madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo mar kalena hadda waxa uu ka hadlayaa soo dhaweynta Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo kelimadooda ku aadan arrimaha soconaya maanta halkan waxaan isugu nimid inaynu soo dhaweyno hogaamiyaha xisbiga wadajir mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah halgamaa weyn oo siyaasadeed oo jecel in dalkan ay ka dhalato dimuqraadiyad iyo isbedel ku salaysan oo inoo horseedo horumar gudoomiye waxaanu leenahay hogaamiye soo dhawow annaga oo aan halkan ku hadlayo magaca xisbiyada tirada 5 xisbi 6 xisbi baa halkan aanu ku joognaa dhammaantii waxaanu halkan u nimid inaanu dareenkayga la wadaagno oo aanu taageero u muujino hogaamiyaha walaalayaal waxaan rabay oo kale inaan halkan ka sheego sidaa wada ogtiin walaal markii ugu horeysay buu dalkeennu ku jiraa khatar siyaasadeed oo jitaankeenna calaamad su'aal saaraysa ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in haddii aanu nahay xisbiyada dalka ka jira aanaan ogolaan karin in dalkina si dhab yar xornimadiisa iyo qarannimadiisa iyo madax bannaanidiisa looga tanaasulo shacbiga Soomaaliyeed waxaanu rabnaa inay garab istaagaan in laga hor istaago qof madaxa oo maryimi oo madaxweynuhu hadda uu ka yahay cid aanu farta ku fiiqayno in sharciga iyo dastuurkan qaranka loogu tunto si aan horey loo arag marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay annaga haddaan nahay xildhibaanadii qaranka ma aqbali karno kutumashada dastuurka iyo shuruucda dalka u yaalla idinkana waxaan idinka rabnaa inaad taageero muujisaan waxaan idinka rabnaa inaad diidaan in dalkan meel kale loo wareejiyo oo calanka buluuga ah aynu hoos fadhino dalkeennu horumar ma gaarin oo waynu ognahay oo uu inoo jajaban yahay laakiin madax bannaanideenna marna kama aynaan gelin gorgortan 85 sannadood ayaa gumaystayna haystay 85 sannadoodba waxaynu ku jirnay iska caabin waxaynu soo maray nidaam dictatorship oo carjuuqya odhan karayna yidhi waxaynu kaga soo gudubnay oo aynu nidaamkeenu ku hor istaagnay caburintiisii iyo xumaantiisii iyo xumadiisii cod wada jira oo aan qabiil ahayn ee qarannimo ku salaysan oo min daraf ilaa daraf dalka looga hor yimi waxaynu diidnay in dalkan warloodha iyo dad aan u qalin iyo al-shabaab iyo argagixiso aynu ugu cagajuglayso oo aynu kaga soo baxnay
maantana wuxuu taagan yahay dalku marxalad hore aan loo arag oo dalkeenna qarannimadiisii la raba in meel kale loo wareejiyo waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inay arrintan garab istaagaan inay nagu garab istaagaan badbaadada qarannimada iyo madax bannaanida ummadda Soomaaliyeed gudoomiyaha mar labaad iyo mar saddexaad baa hogaamiyaha waa soo dhaweynaynaa bacadka waxaan rabaa inaan mahad gaar u soo celiyo shacabka isu soo baxay iyadoo bacadkaasi jirto waxay tusaysaa taasi inaan mabda ku dagaalamaystaan ee aydaan ahayn dad sida dad qaarkii wax yar lagu soo shubtay oo halkan u yimi shilimo yar yar oo mobile loogu soo shubay waan idin mahad celinaynaa garabkiina naga eega xildhibaan cabdifataax oo shacabka ka tirsan isla markaana dictatorship ha dhaco dimuqraadiyadda kor ha noqoto haddana waxaan ku soo dhaweynayaa xildhibaan cilmi cumar xaysane waa xildhibaan laga soo doortay Puntland isla markaana ahaa wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinka qaranka waa la bedelay dhammaan taageerayaasha xisbiga waxaan idin leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa idinka mahad celinaynaa bacadkaad isugu soo baxdeen anigoo ku hadlaya halkan xisbiyada ay ka mid yihiin xildhibaanada qaranku waxaan halkan isugu niminaan soo dhaweyno gudoomiyaha xisbiga wadajir mudane cabdiraxmaan oo muddada ka maqnaa waxaan leenahay ku soo noqo gurigaagii si nabada waddanku wuxuu u baahan yahay in xisbiyo sidaa ay isugu soo banbaxdeen in la isugu soo banbaxo qof kastana afkaartiisa si xora oo xorriyada uga hadlo iyadoo waqtigu aad u kulul yahay una gaaban yahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinka mahad celinayaa sidaad noo soo dhaweyseen sidoo kale waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada xisbiyada kale ka socda ee halkaan nagala soo qayb galay mudane cabdiraxmaan waxaan ku leenahay ku soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaadba magaalo madaxda dalka Soomaaliyeed Muqdisho waxaan mahad gaar u celinaynaa xisbiyada nagala soo qayb galay banaanbaxan xisbiyada nagala soo qayb galay soo dhaweynta xisbiyada nagala soo qayb galay dimuqraadiyadda inay jirto waxaan si gooni u sheegaynaa xisbiyada UPD ha jiro UPD xildhibaanadooda way dadaaleen ha jiraan xildhibaanada himilo ha jiraan ayagana waa soo dhaweynaynaa xildhibaanada xisbiyada kale oo dhammaan xisbiga ilays asagana ha jiro xisbiga wadajir ha jiro dhammaan waa soo dhaweynaynaa wayna wada matalaan waxaan halkaan ku soo dhaweynayaa inaan siyaasi cabdi barre ayaan siinayaa oo asagana kelimad laba daqiiqo halkaan ka jeedi doono soo dhawow xildhibaan hore siyaasi cabdi barre aan soo dhaweyno laga soo doortay xildhibaanadii dowladdii xasan sheekh maxamuud ayuu ku jiray waana xildhibaan hore dhammaantiin gudoomiyaha xildhibaanada sharafta leh iyo shacabka halkaan ku waxaan ku sameeyaa asalaamu calaykum wabarakaatuh iyo dhammaantiin hadal badan uma istaagin waxaan rabaa horta hal jawaab inaan baxsho oo hadda ka horna lagu tilmaamay laakiin dalku kama bixi karo kale talisnimo iyo anaa ayna kama bixi karo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed isma oga in xildhibaanada sharafta ay doorteen xildhibaanna hadday doorteen inuu yiraahdo cidma hadli karto qof manta laba maqaan karo laba xisaabtami karo taas waxa weeye ummadda Soomaaliya ku baaba'day cid ka laga yeeli karana male hay'adaha dawladda waa la xisaabtamaya waxaan kale aad ugu mahad celinayaa baarlamaanka Soomaaliyeed oo gartay shaqadiisii oo muddo 2 sano fiirinayay inaan shacabka niyad jabin si loo ilaaliyo qarannimadii iyo dawladda Soomaaliyeed oo aan oran xildhibaanadu waa degdegeen laakiin maanta xildhibaanadu wax badan bay ogaadeen inay shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka u soo bandhigaan waxa dalka ka socda iyo 8 February 2017 noqotay habeen madow aniga cabdi barre kama tirsani xisbi siyaasadeed kama tirsani laakiin waxaan ay muwaadin Soomaaliyeed oo madax bannaan waxaan aad ugu xumahay madaxweynaha ka Soomaaliyeed markii uu bannaanka joogay eedeero badan uu soo jiidi jiray madaxweynihii dalka xasan sheekh maxamuud u soo jiidi jiray sidaas oo ay tahay cid u jawaabi jirtay iyo cid oran jirtay maxaa tiri midna ma jirin waxaan si aad ugu xumahay madaxweynihii qaranka Soomaaliyeed shalay wuxuu madaxdii ka horreysay ku tilmaami jiray markii lagu tilmaamay asaga inuu dulqaad sameyn waayay inuu carruur yar guryahood u dhaco lagu aasay muxuu ahaa habeen madow la aasay ciddii hadashay inuu far ku fiiqo oo ayaan daro taasna laguma tilmaami karo hogaamiye laguma tilmaami karo
waxyaabihii lagu eegan jiray markuu tilmaamay raggii tilmaamay khaladaadkiisa ka mid ahaa oo siyaasiyiinta cabdiraxmaan shuur ka mid lahaa xildhibaanada sharafta ka mid lahaa wuxuu ku tilmaamay meel kasta oo siyaasiyiin xanaaqsan buu ku tilmaamay laakiin annagu waan ku baraajeenaynaayo waxaan hadda leenahay annagu ma xanaaqsanin madaxweyne hadduu xanaaq ku tagay annagu ma xanaaqsanin laakiin annagu hadda waxaan ku tilmaanay siyaasiyiin cuqdadaysan maanta laga bilaabo magacaasa loo bixinayaa marka taa waa in la wada aad iyo aad u mahadsan waxaan noo socon khudbadihii xildhibaanada ay nagula wadaagi lahaayeen dareenkooda waxaan halkan ku soo dhaweynayaa xildhibaan faarax sheekh cabdiqaadir ala soo dhaweeyo xildhibaan faarax sheekh cabdiqaadir oo Soomaalidu wada garan og tahay ayaa iminka mikrofoonka qabsanaya xildhibaanada aadka maradka u hayuu ku jira si gaar ah waxaa lagu tiriyaa xildhibaanada ugu dhawaa xal sheekh maxamed inta talada hayay wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wa calaa aalihi wa sahbihi wa sallama ajmaciin hogaamiyaha xisbiga wadajir mudane cabdiraxmaan cabdishakuur gudoomiyaha xisbiga mudane kamaal saaxiibadayda labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliyeed shacab weynaha soomaaliyeed ee halkan isugu yimid iyo xilliga qoraxda ee marka hore dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u malaynayaa hadal intii munaasab ahayd waa la yidhi ujeeddada maanta aynu halkan isugu nimaadnay waa inaynu muujinnaa haddaynu nahay shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiintiisa in dalkani uu yahay dal xor ah dadka soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin in ra'yiga siyaasadeed ee ay qabaan ay u caabiraan sida ay doonayaan bishaan bisheedii kale sanadkii hore ayaan darro aad iyo aad u weyn ayaa ka dhacday magaalada muqdisho oo lagu weeraray madaxda iyo siyaasiyiinta xisbiga wadajir maalintaana waan cambaaraynay haddana waxaannu leenahay maanta waxay daliil u tahay inaanan cidna la caburin karin qofna ra'yigiisa aanan lagu beegsan karin dadka soomaaliyeedna aanay oggolaan doonin mudane cabdiraxmaan soowow dadka soomaaliyeed waxa ay kaa sugayaan oo ay kaaga fadhiyaan inaad ugu abaalguddo taageeradii iyo garab istaagga ay kugu sameeyeen marar badanna waa isweydiiyeen maqnaanshahaaga waa isweydiiyeen dalkani qofkii xabad lagu tuuraba hadduu iscararayo meeshaan ma aanan soo gaarneen karaamo iyo sharafna ma yeelaneen mana yeelan doono waxaan jeclahay in dhammaanteen aynu farriin dhab ah u dirno dadka doonayo in xabad wax lagu xalliyo inaynu farriin dhab ah u dirno waa laga soo gudbay way soo dhammaatay xilligeedii lama joogo qofna ra'yigiisa laguma caburin karo waxaynu wada leenahay oynu ku wada joognaa waa dalka oynu wada leenahay dastuurka oynu wada leenahay sarraynta sharciga oynu wada leenahay marka taa inaynu dhammaanteen u istaagno difaaceeda jidka saxdeena aan marno taas ayaa dhammaanteen rooballana aynu isku ixtiraamno aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhawaama mahadsantihiin dhammaan waxaa noo socda khudbadihii xildhibaanadu iskuma jiraan waxaan halkan ku xijinayaa xildhibaanada ugu geesisan baarlamaanka ugu aftahansan baarlamaanka soo dhawow xildhibaan sacdiya soo dhaweeya xildhibaan sacdiya waxaa laga soo doortaa Puntland waa xildhibaanad degan Mareykanka isla markaana qurba jooga waa xildhibaan markii horena taageersanayd Jawaari inaan la ridin Assalaamu calaykum dhamaantiin waa idin wada salaamayaa dadka qaraacda iskugu yimi gudoomiyaha aad ku soo dhaweynaya soo dhawow aad ayay ninkan u mahadsantihiin intii la dhihi lahaa waa la yiri aniga waa la ii qariyay ma maleynaya hadalka uu leeyahay hadal badan ma aqaanin laakiin waxaan aad iyo aad u taageersanahay intiina Soomaaliya oo dumarka wali aad u badan waxa aad ku soo baxdeen ayaan dareemayaa waxa ku soo baxdeen waxa idinka maqan ayaa naga maqan dadkii xildhibaanada idin matalaynay ayaan nahay alle waxaan kaliya rabaa ani inaan dhaho oo cadeeyo qori iyo caburin haday macno leedahay dagaalna ina kuma dhaceen qaxootina dibadda kuma noqoneen orda taa waa in meel la galin madaxa la xasuusnaado
dadka dhahaya ma hadli kartiin ama intii wadooyinka hadda ciyaalo la soo saaray masaakiina iyo dumar indha shareer xiran wadada marayo qof kasta waa u jeedaa inaysan wadda daacad ku soo baxay ay yihiin idinka wajiyadina furan yihiin oo magacyadiina watana maanta waa idinka hor taagan oo bacadka taagan marka dawladdana waxaan leenahay inagoo isku duuba idinka waa idin bedelna waa annaga waxaan nahay xildhibaanadii waxaan ku raacsannahay oo idin garab istaagannahay qof kasta oo Soomaaliya oo la dabco in la caburiyo waxaan annaga leenahay cid caburin kartaa ma jirto caburina mar hore u dambaysay waxaan leeyahay soo dhawaada waa mahadsantihiin gudoomiyaha hadda ayaan ku wareejinayaa xildhibaan Sacdiyo soo dhaweynaynaa علي سو دhoweey xildhibaanka oo geesiyaasha ku jira xildhibaan Khaliif soo dhawow xildhibaan Khaliif waa nin kale oo asagana hore u dinaa xildhibaanada ka tirsan in jawaari la riday markii hore waana nin sida lagu sheego codkar aad iyo aad ma adsantahay gudoomiye guutaale السلام عليكم Soomaaliya حرود وهذا waxaan rabaa dagaal hore ka galaya xanfareeshaan siinaya gudoomiyihii baarlamaanka qabtay mooshinkii aan ka keenay madaxweynaha maanta waa maxbuus waa ka xunahay inaan naadino oon sheegno laakiin madaxweyne xiraayo gudoomiye baarlamaan weeraraayo oo ka xiraayo albaabada xildhibaanada soo ziyaaran karin wax lala yaabo wa fariinta aan hayna hadda waa xildhibaano badan in laga soo celiyay madaxtooyada oo ah gurigii uu gudoomiyaha baarlamaanka deganaa haddaba Soomaaliya ogaada xanfareesha waaye wixii soo baxay ku dambaysana nala socda social media iyo telefoonada iyo idaacadahana waan ka hadli doonaa iyo aadan maxaan u soo dhaweynayaa gudoomiyaha hogaamiyaha wadajir waxaan ku joognaa axsaab badan waxaan ka koobannahay ilaa 5 urur xisbi oo siyaasadeed aad ayaan soo dhaweynaynaa hogaamiye Cabdiraxmaan Cabdishakuur meeshaan waxay calaamad u tahay xalay 9 saac 8 saac habeenimo waxaa la bilaabay in la soo saaro IDB-yada masaakiinta danta ay ku haysa IDB-yada maanta waxba kama qabno xeryaha qaxootiga in la tago oo wax la siiyo igu sawiraanahayn waa ku faraxsan waa rabnaa laakiin waxaan diidayna waa igu sawir iyo in shilimaadka wax looga bedesho in qoraxdaas lagu dilo adinka waxaad ku joogtaan cadceedaas mabda aad iyo aad aan ugu faraxsanahay hadee reeryada maxaa la yidhahdaa annagaa idinka ridayna nala socda hadee wiilasha miidiyaha 4 shilin lagu siiyana hawaan toogaano mas-uuliyiintooda caayo hawaan toogaano waxaan ku soo dhaweynayaa guutaale aad iyo aad idin soo dhaweynaya assalaamu calaykum social media ka wada ma aha wiilashan idaacadaha ka shaqeeya qolada Yurub iyo America joogto oo maxaa la yiraahdaa lagu beegareeyo 4 shilin ayagoo ceel qaadanaya xoogaa la siiyo wiilashaasaan la hadlaya assalaamu calaykum xildhibaan Khaliif waa mahadsan yahay waxaan rabaa halkan sidoo kale inaan ku soo dhaweeyo xildhibaan Khaliif shacabkan waxay ku ballan qaadayaan inay gudoomiyaha golaha shacabka ee meeshiisa ugu tagi doonaan meeshiisa ugu tagayna Soomaa halkiisaan ugu tagayna waa ku ballan qaadnay xataa freshkana waa ka qabanay waxaan waa mahadsan tahay halkan waxaan ku xijinayaa xildhibaan ka tirsan guddiga maaliyadda ma taqaanay guddiga maaliyadda waa nimankii 42 milyan ayadoo loo baxay soo qabtay waay xildhibaankaas waxaa la yidhaahdaa 2+2 ma taqaanaa laba lagu dara meeqa waay nimana waxay rabaa inay 3 ka dhigaan hal xabo ee dhigtiyaan soo dhawow xildhibaan Abdixakiim السلام عليكم ورحمة الله. marka waxaan soo dhaweynayaa hogaamiyaha xisbiga
wadajir waxaan soo dhaweynayaa dhammaan xildhibaanada sharafta leh ee ka soo qayb galay maanta soo dhaweynta hogaamiyaha waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadka halkan qoraxda jooga ee sida la sheegay dhammaantood si ka bedelan waxa ka socda maanta magaalada halkan ku yimaadeen ra'yigooda xora ku yimaadeen aragtidooda ku yimaadeen qoraxdaan u taagan inay muujiyaan mowqifkooda iyo caqligooda iyo garashadooda ilaahay uu siiyey waxa ay la noqotay aad baan u soo dhaweynayaa dhammaantiin waana ka xumahay runtii aad kulaylkaan joogtaan laakiin dareenkiina quruxda badana halkaan idin keenay isagaan idinkaga mahad celinaynaa waxaan rabaa inaan halkaan ka sheego baarlamaanka Soomaaliyeed ee annagu aan xubnaha ka nahay muddo 2 sano ku dhow ayaa la fiirinayay in xaaladda dalkan wax ka soo hagaagi karaan shalay iyo daraad iyo tii ka horeysay dhacdooyin midba kale ka xanuun badan tahay ayaa ku socday magaalada Muqdisho amnigii magaalada iyo amnigii guud ahaan dalka qalqal galay waxaad ogtiin in maantay magaalada Muqdisho dadka ku noolaa 2 canshuur laga qaadayo oo shalay ay shabaab ka qaadayeen xoolo haddana daacish ugu soo korodhay dawladuna aysan hal abaab canshuur ka qaadin oo aynan ka qaadayso dekada uga qaadato xuquuqdii ay ahayd canshuurtii ay ahayd in suuqyada lagu qaado inay dekada uga qaadato amnigii dalka khatar ku jira muwaadiniintii Soomaaliyeed gacan kale loo dhiibay dadkii baa guryahooda habeen madow lagu weeraray oo kabahooda lagu aasay waxa weeyaan waad ogtiin waxa culays siyaasadeed lagu haayo xorriyadii ra'yiga baabaday oo maanta qof xasaanad la mooyaan qof kale toosan kalimadiisa oo san jeedin karin dalka badbaadin idinka raba hadii la soo saaray mid lacag yar oo maaragtay runtii ugu dhibaataysan yahay laga faa'iideystay ee lagu geeyay mudaharaadyada dadka Soomaaliyeed ee waxgaradka ah ee magaalada Muqdisho ku nool ee odaga leh ee dhalinyarada leh haweenka leh ay u baahan tahay inay dalkooda iyo dadkooda badbaadsadaan qori qaada idima dhahayno dagaalama idima dhahayno xanuunka ay leedahay waa naqaanaa laakiin waa inaad codkiina muujisaan waa inaad kelimadiina u sheegtaan kuwa digtaytarada ah kuwa doonaya dalkan inuu xornimadiisii dib uga laabto inaad runta u sheegtaan waaye sida xildhibaanadii iga horeeyay u sheegay qof la caburin karaa ma jiro waxaad wax ku tahay waxna ku noqon kartaa waa sharciga iyo qaanuunka hal daqiiqo haddaad dhinac ka martana macnahaagaa dhumaya dadka Soomaaliyeed toodana qiimo kama yeelanaysa waxaan anaga ku taaganahay wax sharciya waaye mooshinaan ka geynay shalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qaanuunka war yaalla isagaana go'aan ka gaaraya inaad habeenkii guuraysay inaad xariiqa qaxootiga tagtahay waxba kama bedeli karaan mowqifkaas dariiqa saxda ah maraya sharciga waddanka hogaaminaya horaha la socdo dalkiina badbaadsada u dhaqaaqa inaad difaacataan cidna yaysan xornimadiina soo faragelin amnigiina cidna ma taaban karo xor baatiin ilaahayba waxaad dhalateen adinkoo xor ah noolaada adinkoo xor ah dalkiina iyo dadkiina difaacaada oo maaskii salaamu calaykum tuugada soo jeebeda tuugada la soo jeebeda tuugada dawladda ku jirta ayuu ka tiiraysan inuu keenan karabna hadda halkan waxaan ku soo dhaweynayaa xildhibaan Cabdicaziis soo dhawow xildhibaane ala soo dhawow Cabdicaziis waa gudoomiye ku-xigeenkii hore wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenkii hore gobolka Banaadir xilligii madaala joogay wuxuu xildhibaanada soo galay markuu xashan kursiga banaynayay waana xildhibaan hadda ka qayb qaadanaya saweynta Cabdiraxmaan Cabdishakuur Cabdishakuur iyo dhammaan shacabka meeshan isugu soo baxay xildhibaanada sharafta leh iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii hadal murtidiis waxa yiri xildhibaanadii iga horeeyay ama mas'uuliyiintii iga horeeyay tiri waxaan ku faraxsanahay in intaas oo ummadu isugu soo timid meeshan isugu soo baxday soo dhaweynta hogaamiyaha iyo dareenka ay ka qabaan waddankoodu in macnaheedu maaragtay ay diyaar u yihiin inaysan ogolaanin in dib dhac uu ku dhaco runtii waan ka xumahay inaad qoraxda joogtaan annaguna maaragtay aan marba isu bedelayno laakiin dhammaantan damiirka ayaa meeshan wada keenay insha allah dulqaadkana waan kaga mahad celinaynaa mar kale waxaad leenahay waddanku wuxuu ku socdaa in la soo galo heshiisyo aan la ogeyn waxa lagu soo heshiiyey oo qarsoon runtii wax loo dul qaadan karana ma ahan markii mooshinka laga keenay heshiisyadaasna hoosaa la dhigay muxuu mooshinkii waa loo istaagay sababta waa daba joognaa weli laakiin dhegtu waxay idiin taagnaata haddii la yidhaahdo waddankan siyaadadiisa inaan ka wada shaqaynaan diyaar u nahay ma ogolin
caburin iyo muxuu ahaaye laba lug soo gasho oo maaragtay muxuu ahaaye hadallo aan la ogeyn meel maaragtay kusoo qorta ma ogolin insha allahu tacaala waana hor istaagayn haddaan la yidhaahdo waxaan leenahay heshiisyada lala soo galay Itoobiya iyo Eritrea ma aha mid waafaqa oo maaragtay Soomaaliya hadda macnihi ay waafaqi karta ma ahan Eritrea iyo Itoobiya labaduba dadkooda way u sheegeen waxay yidhaahdeen Soomaaliya idiin somnaa inaad ka shaqaysataan oo aan gacanta idiin soo gelino laakiin hogaamiyayaashana nooma aysan sheegin waxa ay la soo galeen waxaan leenahay Soomaaliya iyadoo horey joogtaa iyadoo horena waa ay joogi doontaa insha allahu tacaala mana ogolaanayno nin shala boorso keensaday oo boorso yar la yimid inuu waddankan gacanta ka saaro ma ogolaanayno insha allahu tacaala waxaan leenahay markale insha allahu tacaala عمل صعنا بإذن الله تعالى إن شاء الله وحين سكرنا وصل صعنا بإذن الله. اللي ما كان محوني يري صوماليا صحن لصار مايو صحن ضد أجنبي الله ما صار صوماليا معهن وح صحن انت الله صار طلق لو جينا يلا جذنا يا معهن اللي بانا وما سنتهاي حتى ندتك اسكو مجيران اللي بانا اسكو مجيران وحن هلكان كسر ويننا اللي بانا لنا قلبي صومالي قلبي يسوع بلوغ قلبي يسوع maahan guduud maahan qalbigiisa waxaa ku xardhan calanka Soomaaliya ku xardhan waa xildhibaankii u istaagay dhammaan xildhibaanadana waa u istaageen arrintii qalbi dhagax oo ah shakhsi Soomaaliyeed oo si maxalla cadaalad darro ah oo sharci darro ah loo boofiyay ma ogolaan karno shakhsiga iyo karaamada qofka Soomaaliyeed sida qalbi dhagax ama qof kastoo nagarsan in loo dhiibo waxaan soo dhaweynayaa xildhibaan Axmed Macalin Fiqi xildhibaan Axmed qalbi Soomaali soo dhawaada loo istaago وما سيء كمال قدوميها حسبي ودجر ما أنت وحي هذا لها ولديه لها وحي اللي بانها هل كان وحنقصوا دويلنا حكاميها حسبي ودجر صاحب كان عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي وضلك مدكم مغنى ومقتين مغناشيه سأن تبني وحبضاً وحكمة نجا مقنع لكن الرجال إنه ما كان حكمة كلية ما هن بدبادة ضلك إنه يمد مركا وسود ويننا وقام يسود تنحكته وحل يرادو ربيتان كدتك يعبرنت يقصبدو waxay ka muuqataa sidii xildhibaanada iga horreeyay ay sheegeen wajiyada dadka halkan jooga oo faraxsan oo qorraxda isku faraxsan ayagoon waxba la siin laakiin rabitaankooda u yimid iyo kuwa ku suuxaya daljirka dahsoon inta xalay 8 saac la keenay ee laga qaadayo maanta inta suuxeen gaajo qurac lama siin biyo lama siin ayagoo suuxsan hadba ambalaasku ay qaadayso farqiga u dhaxeeya kaas weeye marka waa baasantiin waxaan rabaa hal kelimo kaliya inaan ku soo gunaado waxaan ka mid ahaa aniga xildhibaanadii madaxweynaha hadda xilka haya ee mooshinka laga geeyey xildhibaanadii wax ka doortaan ka mid ahaa kadib markii hadalla macan iyo niyad fiican aan ku aragnay aan ka daanay maana ogeyn wuxuu samayn doono laakiin 2 sano ku shaqeeyay kaligiisuna yimid dalkana ma joogi jirin boosuu iska wad markii uu yimid oo la doortay wixii uu sheegtay oo dhan oo uu yiri waa qabanayaa hal shay kama qaban wixii dastuurku siinayo inuu ixtiraamo oo ahaa dastuurka dalkan yaalla ee dadka Soomaaliyeed ay ku kala dambeeyaan ee ay ku heshiyeenna qodobadiisii min dhinac ilaa dhinac kale uga dhaxay ku tumasho halkaas markay marayso lama necba madaxweynaha waligiin ha necbaanina waa u turaynaa annaga waxaan leenahay madaxweyne ma sii wadi kartid xilkan waa kugu culus yahay marka waxaa jooga hogaamiyaal kale oo sii wadi kara oo wixii 2 sano naga halaabayna noo toosinaya ha noogu darin 2 sano kale madaxweyne naga joog
intaas nooga ekee baan anaga wax kaloo aan niri ma leh waxaana ku matelaynay dadkii dhintay ee halkan kilomitir 5 oo darisnala 1000 qofood ka badan ay ku dhimatay waxaan ku matelaynay kuwa habeen kasta la dilo waxaan ku matelaynay kuwa ganacsatada ee inta loogu soo galo baqaaradooda la dilayo waxaan ku matelaynay maamul goboleedyada la colaadiyey ee weerarka iyo kala qaybinta lagu sameeyey waxaan ku matelaynay Somaliland oo la yiri deeqaha laga jiro waxaan ku matelaynay cid kastoo Soomaaliyeed oo ku dhiban xukunka madaxweyne Farmaajo hoostiis qof kastoo ku dhiban ayaan ku matelaynay mooshinkii iyo soo jeedintii ahayd madaxweyne xilka ma sii wadi kartid waa kaaga turaynaa laguma nacba hawlo badan oo adiga laftaada ku yaala jiro aad wadan jirtay madaxweyne halkaan noo dhig waa sii wadanaynaa dad baa sii wadaya adigu iska laabo intaas ay ugu xishaan keenay wax kale ma ahayn arrin kaliya rabaa inaan ku daro waagii hore qofkii dalka lagu cabiriyo xagee buu aadi jiray wuxuu aadi jiray wadamada dariska Itoobiya hadda madaxweynihii baa Itoobiya aaday madaxweynihii ayaa Itoobiya naga aaday inta dadkiisii ka carooday nancin waayay wuxuu sheegi waayay ayuu yiri ciidamada Eritrea iyo Itoobiya dalka ay qabanaya heshiis noocaas dalkaana ciidan hadii lagu qabsan karo 40,000 baa Unisom 92 iyo 93 timid 50,000 ku dhawaad baa Itoobiyaan keeneen halkan ayuu kaayaashoodii wata kuwa horeeyo ciidamada way jiraan laakiin Soomaali bay ahaayeen ciidamada ajnabiga ninkii dadkiisa u soo wata ama kuwa dalkiisa yiraahda dadka iyo caburiya ninkaas mugdi buu gudayaa waa nin khabar mooga wuxuu u baahan yahay in far waaweyn wax loogu qoro oo la yiraahdo dadna lama caburin karo qorina waxba tari maye waxaad u soo baxdaa waxa isku difaacdaa madaxweynuhu waa inuu isku difaaca sidii akhyaarta hadda iga horeysay yiraahdeen xildhibaanada waa inuu isku difaaca sharciga hortiisa laakiin barakace maskiin oo la soo kiciyay ama qaaqlayaal Facebook inta la fariisiyay la yiri iidaha ama caburin oo maanta wixii aeroboortka aan ku arkaynay iyo mid hadda gudoomiyaha laga sheegay waxa soo dhamay waa wiil yar oo qaaqlaha aan dhawaato waxa arkayn oo aeroboortka lagu wareejinayo nin wasiir soo dhaweey nin dhan oo hogaamiya oo xisbi dhan oo siyaasi iyo wasiir soo noqday xildhibaan soo noqday madaxweyne u tartamay ayaa maanta halka laga xigtay wiil qaaqlaana waa la soo dhaweynay waxa ilaahay hortiisa xaq miya waxa aan rabno shacab iyo xildhibaanaba inay isku baahistaan waxa weeye dalkan wada qaldan oo qardajeex uu qaaday wadadii saxda ahayd anagoo dhan bay mas'uuliyaduna saaranta inaan ku soo wada duuno xisbiga wadajir taageerayaashiisa iyo xubnihiisa iyo hoggaankiisana waxaan uga mahad celinaynaa maanta ay adkeyd in la isku soo baxo oo wadooyinkii la xiray maanta ay adkeyd maaragtay wixii shala dhacay iyo wixii xala dhacay in maanta dad intaan leeyahay isku soo baxaan inay muujiyeen xayndaabkii inay ka soo gudbeen xorriyaddu halkaan ka bilaabanaysaaba midaanaba xorriyadda iyo dimuqraadiyadda bilowgeeda waa maasantiin waxaan rabnaa jidadka in lagu socdo xisbiyadaan oo dhan kullay shirar bay geli doonaan jidkaas inaan dareenkeena ku muujinno annagoo wada jirna oo xorriyaddeena dimuqraadiyadii dalkan madaxweynaha cod baa lagu doortay qori kuma haysan karo cod baa lagu doortay barakaca kuma haysan karo cod baa lagu doortay ciyaal qaaqlayaala kuma haysan karo sharcigu ku haysan karaa sharciga la rabaa inuu isku difaaco waxaan rabnaa inaan jidadka ku muujinno shucuurkeena iyo dareenkeena tagno daljirka dacsoon oo maanta barakayaal la geeyey inaan annagoo barakacayaal ahayn oo guryaheennii ka soo kacnay inaan halkaas tagno ayaa noo ballana waa maasantiin xildhibaanada federaalka baarlamaanka maanta wixii dambeeya waxay noo ballan qaadeen inay shacabkooda la hadlaan ay u sheegaan go'aanka ay qaateen ay la xiriiriyaan wax walba oo ay meesha keeneen shacabkooda loo gardhiso
madaxweynaha jamhuuriyadda asagana waxaan leenahay guryaha isku xidhaysa iska daa shacabkaaga u imow waa kana halkaan ay maxaa la yidhaahdaa diidan yihiin inaad maxaa dal kale u cararto dal shisheeye inaad u cararto baa diidan yihiin haddana halkan waxaan ku soo dhawaynaynaa maantay waxaan sugaynay ilaa iyo hadda kelmaddii hogaamiyaha laakiin waxaan rabaa kelmadda dhaqanka oo odayaashii geed fadhiga ahaa ee dalka iyo dowladnimada soo dhisay inaan ku horumaro kadibna uu soo dhaweeyo hogaamiyaha ee aan wada sugaynay soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. horta aniga dowladda soo dhisanahay bashir ala cabsiga ka jirtay waxaan rabaa anaga mooshin shacab aan wada anigu mooshin shacabku farmaajo mooshin ku wada hadda lacag ka qaadan doontiin hadda ninkaas ka daayay ninka dalka laga qabto dalku wuxuu qarka u saaray inuu xabad bilowdaan ku saarta shacabka wax walba oo dowladnimo waa weyn shacabku wax walba oo dowladnimo waa waayay bal la isku sawiro dad la caburiyo dad kala la yuba lagu duubo annaga ma ana arki jiray dowladda kan geelada ka diiday iyo diyaarada wata ka diiday ma ka aqbalayno nimanka shisheeyo waardiyayaan inay dadka naga laayaan oo boorsooyinka mido baasaboorada islaamiyada ma aqbalayno wallahi habaan ku bilaabaynaa shacabka ku bilaabay moosina ka wadna ma aqbalayno waxaan halkaan u imid waa inaan ayaga jeediyo xildhibaanada waxaan ka rabaa ninkaan ay nooga riixdaan ra'iisul wasaaraha raacina dowladda dhistaan ka rabnaa salaamu calaykum waraxmatullaahi موشكي شعبك ما صيحدان موشكي شعبك ما صيحدان إلا موشكي وحواي شعبك عايز يصيح halkan waxaan ku soo dhaweynayaa waxaa jira hogaamiye ayaa hadda khudbadiisa jeedinaya laakiin kadib barbaarta gaashaaman ayaa nooga dambeyn doonta dhaantadii ayaa nooga dambeyn doonta waxaan rabnaa inaan hogaamiyaha soo dhaweyno hogaamiyaha la soo dhaweeyo aad ayaan marka hore ugu mahadcelinayaa saacadaha dheer ee tirada badan ee maanta qoraxda fadhiseen cadceedda iyadoo aad u kulushahay aad iyo aadaan runtii ugu mahadcelinaya iyadoo cidina soo qasabtay ama cidina soo laaluushay aysan jirin waa rabitaankiina halkaan ku timaadeen aad iyo aadaan kaga mahadcelinaya waxaan kaloo u mahadcelinayaa xildhibaanada iyo xisbiyada kala duwan matalaya sharafta leh ee ayagana qoraxda nala joogay ee laboorka lagu xayiray ee lagu xanimay ee laga xirtay ilaa hadda nala socdana aad iyo aad ugu mahadcelinaya xildhibaana waa maasantihiin maanta waxaan ku soo noqday muqdisho ayagoo madaxweyniga weynaysan yahay waxaan leeyahay madaxweynaha adigaa isoo weeraray oo amar ku bixiyey guriga inaad ku soo weerarto wiilashii askartaha iga laayay kabaha ku aasay maxkamada isla tagnay sharcigaan ku kala baxnay waxaan rabaa madaxweyne fariinta koowaad dilaa waxay tahay adiga iyo xildhibaanada waa eedaysantahay sharciga ku kala baxa waa fariinta koowaad fariinta labaad waxaan rabaa inaan reer muqdisho u jiro maanta waxaan rabnaa reer muqdisho haddaana inaan idhaahno waa markii ugu dambaysay soohigu ma dhihi jiro waa markii ugu horraysay maanta waxaan leenahay waa markii ugu dambaysay oo jidadkeeda la ka xirto waa markii ugu dambaysay oo cashuurteeda la dhaco waa markii ugu dambaysay oo qoray uu taliyo waa markii ugu dambaysay oo dadka la caburiyo dad la caburi karo madiin anaa ay aqaano caburis horaa u jiideen kuwa ka xoog badanaa ka diideen kuwa ka taankiyeeliya diyaaro badanaa ka diideen cid cid caburi kartaa ma laha waxaan dhegaystay saxaafaddii hor fadhisaa afayeenkii uu hadlaaya baada saxaafadda oo caburin ka sheeganaya waxaan arkaa xildhibaanadii oo caburin ka sheeganaya waxa la isku caburinaayo saxa inta laga sheegay taankiga amisom la iskuma caburi karo kii etoobiya isku caburinayo marka taasaan leenahay waxaan leenahay oo xildhibaanada ku taageersannahay sharafta leh oo shaki ay keeneen madaxweyne farmaajo wax soomaalnimo waa ka weyey qalbida waxa u dhiibay soomaalnimo ma ahayn maanta waa kii jigjiga lagu soo dhowaya soo sharaf leh oo dadkiisii dhex jooga waa ay soo weeray ilmihii askarta ahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayuu laayay wax soomaalnimo maaha walaalaha jabuuti ayuu ka doorbiday inuu gees geliyo
oo la dagaalamo dadkooda soomaalnimo ma aragno wuxuu leeyahay somaliland mucaawanadaha laga jaro soomaalnimo ma aragno wax soomaalinimo madaxweynaha waa ka weynay markii horena wuxuu noo sheegay inuu soomaali u socdo laakiin annaga waxaa leenahay madaxweyne wax soomaali ah waa kaa weynay hadday tahay maamul goboleed hadday tahay somaliland hadday tahay jabuuti hadday tahay ogaden iyo soomaali galbeed meel aad soomaali ku matasho waa laleeyahay madaxweyne saas daraaddeed waxaan taageersanahay haddaana xisbiga wadajir washinka ay soo jeediyeen xildhibaanada ayaan taageersanahay oo aan dhinac taaganahay waxaan rabnaa reer muqdisho meesha waa taxriir square horena u ahaa jirtay waa taxriir square waa meesha muqdisho laga xoraynayo ma aha keliya in dowladda iyo qorigeeda iyo qacdeeda iyo qubkeeda iyo soo bixinteeda laga xoraynayo maaha waxaa laga xoraynayaa daacish waxaa lagu baaqayaa ganacsatada hogan ee dhuumanaysa ee cararaysa ee daacish baadda siinaysa oo shabaab baadda siinaysa oo bayle baadda siinaysa inay iska dhaafaan ay bannaanka u soo baxaan oo dadkooda taageeraan oo is-xoreeyaan oo dhiiggii dadnimo isku yeelaan ma aha inay hoteelada ku dhuuntaan ayagoo hantidii dadka iyo ganacsigii baamushtarkii haysta waa inay is-xoreeyaan dad iska dhigaan xildhibaanada saasaan ugu baaqaynaa intooda hasanee sandareertada rabta inay soo baxaan oo dadkooda xoreeyaan etoobiya qore lagu haysa waayo wiilal yaryar wiilal yaryar oo qabiilka oromada la yidhahda ama qoomiyadda wadada ka tirsan mudaaraadkooda 250 kun oo ciidan Itoobiya lagu raacday oo maanta Itoobiya dimuqraadiyad ku haysata waxaan rabnaa inaan dimuqraadiyad waxaan rabnaa inaan xabadka u dhigno waxaan rabnaa inaan ku dirirno dirirtaas laakiin waa nabadgelya waxaa la yidhahdaa civil resistance yaa la yidhahdaa waa muqaawama madaniya waxaan muqaawameynaynaa si nabadgelyo leh oo dimuqraadiyad leh waa u dhimanaa horena u soo samaynay dictatorna waa u diidnay reer muqdisho haddaad tihiin waxaan rabnaa inaan isku raacno waa markii ugu dambaysay maamul la'aan muqdisho ay noqoto muqdisho waa inay heshaa canshuurteeda maamul u matala ee madaxdeeda la xisaabtama ma yeeli karno inay 3 milyan matala la'aan noqoto waana dhibtay muqdisho waa inay tiraahdaa waa markii ugu dambaysay oo matala la'aan ay noqoto muqdisho waa markii ugu dambaysay hooyooyinka jidka ku dhalaan jidka idinkaa fura kara idinkaa xora xornimaa ku dhalateen dad xor ahaad tihiin weligiina xor ahaan jirteen cidina gumaysan kartaana lama arko taasaan annaga ku hor raacaynaa waxaa aragtaan waxaad fiirsateen doorashooyinka waxaa socda puntland madaxweyne kaas musharaxiinta la tartamaya maalintu fagaaray istaagaan way dhaliilaan way ceebeeyaan xukunkay ka rabaan hala marna xabad ku marin soo xabad midaa ma aragteen madaxweyne siinaayo waxaa rabaa muuse biixi dadka la tartamaya ama xisbiyada mucaaradka fagaarayaasha tagaan waa dhaliilaan waa cambaarayaan asoo xabad kuridaa ma aragteen madaxweyne farmaajo waa inuu xishoodaa hadduu diyaas mara jiray oo usan la socdin annaga u sheegayno xabada la isku ridaayo iyo qore la soo qaadanayo waa ayaan daro in la yidhaah guddoomiyihii baarlamaanka ayaa gurigiisii hareeraysan yahay wax la yeeli kara ma aha walaa madaxweynaha wuxuu is yidhi jawaariya hore u tanaasulay cabdiraxmaan xushufuuraa tanaasulay tanaasulkoo daciifnimo u qaatay taasna waa nacasnimo ninka tanaasulka nacasnimo u qaatay daciifnimo waa nacasnimo ninka u qaatay daciifnimaas tanaasuli mayno xaqaynaan ku taaganahay guddoomiyaha baarlamaanka waxaan leenahay xaqaada ku taagnaaw sharciga ku soco dadkan ku dhinac taagan ma aha kuwa lacag lagu soo bixiyey ma aha kuwa la soo dheemiyey waa dad xor ah weligooday xor ahaayeen waana noqon doonaan reer muqdishoa la yidhaahdaa 30 kun oo Itoobiyaana halkan ka tireen maraykana xoog ku qabsana waa ku qabsan waaye Itoobiya xoog ku qabsanata ku qabsan waysay kaliya laakiin dowladda maaha si wada jir rabnaa inaan argagixisadan iskaga celin waa iska celi karnaa lagama adko argagixiso waa iska celi karnaa waa inaan shabaab iyo daacish meel uga soo wada jeesanaa ma yeeli karno wiilal yaroo meelay ka yimaadeen aan aqoonin inay dhahaan ganacsatada waa qaadaynaa lacagana siiyaan ayagana ay hagoogtaan oo guryaha isku xidhaan wax la yeeli kara maa waa nacasnimo waa dadnimo xumo waa diin xumo waa islaamnimo xumo intaba aad iyo aadaan kugu mahadcelinayaa sida sharafta iyo karaamada leh waad ii soo dhowayseen oon meeshaan u soo noqday halgankeenna waa meeshaan ka bilaabaynay xorriyadoonka ah xorriyadirirka ah soomaali raadinteeda ah dadnimada iyo dowladnimada raadinta ah waxaan ku faraxsanahay in daraab qalbidhagaxa jigjiga lagu soo weeyey oo farmaajo gacanta cadow u geliyey
maanta anigii soo warana fagaaraha dhex taaganahay oo dadkaygii soo dhaweeyeen oo hornahay xorriyaddaa dambaynaysa xaqaa guulaysan doona qul jaa alxaqu wazahaqa albaaطilu ina albaatila ilaahay wuxuu yidhi kaana sahuuqan baatil waa suulaya propaganda meel ma tegayso wax la yidhaahdo wiilal yaryaroo sida la sheegay xildhibaan fiqi sheegay telefishinada iyo websaadyada maxaa internetka ka hadlaan wax ma leh madaxweynaha dadka hor imaado la hadal waa qabta uu sheeg hadhuumanin soomaaliya waa ka weyn tahay xildhibaan cabdifitaaxa sheegay wax saxan la saaro waa ka weyn tahay soomaaliya lama dhuumi karo soomaaliya lama qari karo soomaaliya lama loogi karo soomaaliya si dad la siiye lagama dhigi karo waxaan rabnaa inaan taas u wada joogsanno qoraxda daraaddeed iyo waqti badan oo joogta waan soo gaabinayaa khudbadayda aad iyo aad u mahadsantihiin xildhibaanada sharafta waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi maasantiin saaxiibada daawanaya. Thank you very much. Thank you. بيت غالي مالك